بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي maanta waxaan idiin soo bandhigayaa geedkaas oo quraanka lagu sheegay oo wili 3 mar lagu sheegay quraanka. geedkana waa kaas, waa rummaan. fiihimaa faakihatun wa naqlun wa rummaan. ilaahay quraankiisa sidaasuu ku leeyahay, waxa waaye dhirta ahlul jannada. ubaxeeda haddaad rabtaan siduu egyahay inaad ogaataan, waxay leedahay ubax aad iyo aad u qurux badan oo guduudkaasi ah. meeshaanna waxaa ka baxayo geedka rummaanka, waa masar waaye. mukulaashiina meeshaan miyaw ka leedahay, biyay cabbaysaa. maasha allah tabaaraka allah. geedkaanna waa liindhanaantii waaye. laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa geedkan rummaanka ah. rummaanka waxa waa geedaha sida fudud loo beeri karo. miraha laga beeri karaa, laamanka laga beeri karaa. waxa waaye geedo haddii la beero u adkaysani karo dhulka qalalan oo cusbada ku badan tahay. waxa waaye geed abaareed waaye. marka geedkan maadaama uu geed abaareed yahay, waxa waaye geed aad iyo aad u adkaysi badan. beeritaankiisana waxa waaye si dhaqso loo abuuri karaa oo wax dhib badan ma laha. geedkii cambahana waa kana, qaybaa ka qalasha, qaybta kale waa qoyaan waaye. marka jiridka rummaanka sidaasuu u baxaa. wuxuu sameeyaa laamo fara badan. markuu laamo fara badan sameeyo, waxaa la sameeyaa laamaha waa la yareeyaa, hal laan loo daayaa. laantaas ama 2 laan oo noqonayso jirad xoog leh. jiradkaas tafaruc marka ay ka baxayaan, markaas waxay sameynayaan caleemahan aad u jeedaan. waa kana hadeer fiyooro kale oo rummaanka ah haddaad u jeedaan. geedkan waxa waaye shinnida way daaqdaa, malabkiisana ma aragtay way ka samaysaa. marka geedkan maadaama uu yahay geedaha quraanka lagu sheegay, waxaa muhiim ah in Soomaalida ay bartaan thaqaafada in la beero geedaha, khaasatan kuwooda quraanka lagu sheegay oo geeda fara badan leh oo rummaanka uu ka mid yahay. haddaa guriga ku beeratid waxaad ka helaysaa miro. mirahaas oo noocyo kala duwan leh iyo asnaaf kala duwan leh, magacyo kala leh, kuwa dhanaan, kuwa macaan, kuwa guduud, kuwa jaallo iyo kuwa madow. intaba rummaanka waxa waaye geedaha laga helo. maadaama uu yahay rummaanka geedaha oo ma aragtay muhiimka ah oo dhulka Soomaalidana aad iyo aad ugu bixi karo, waxaa muhiim ah in la ogaado caafimaadkiisa. rummaanka wuxuu ka mid yahay dhirta mindaawaadku ka mid yahay. marka maadaama uu ka mid yahay dhirta mindaawaadka ah, wuxuu caafimaad u yahay wadnaha. kolestaroolkana wuu yareeyaa oo ma aragtay dadka kolestaroolka qabo, geedkan rummaanka aad iyo aad uu ugu fiican yahay. sidoo kale wuxuu ka hortagaa waxa la dhahayo infectionada, caabuqyada. waxa waaye geed oo caafimaadka ka mid ah. naam صح. ايوه. والان الاستاذ بيورينا المهندس. ازيك يا باشمهندس؟ كيف الحال؟ انت اللي زارعه ولا ايه؟ لا يا نعم صح. هو طالع كده. ايوه ما شاء الله. هو طالع كده من عند ربنا. انا بقول له لاهلنا في الصومال، بقول له يزرعوا الرمان ذكر في القرآن. واخد بالك؟
والزيتون. أيوة أنت قرآن ولا؟ ما شاء الله يا ولدي. هذا والتين والزيتون والعنب والنخل كل دهن. أيوة صحيح. إيه؟ لا شكرا إن شاء الله بارك الله فيك. مركا جيت كان رومانكا وحواي جيت نعم. أيوة عارفة فيها مانجا وقوافة كمان. القوافة هناك. مركا هذا ويل كان قالي مركا بقيادة كهرت waxa waaye geedaha la dagaaltamo kansarka oo ma aragtay kansarka hadduu faafi lahaa waxa waaye geedaha celinayo inuu kansarka faafo. marka Soomaaliyay hal laga faa'iideysto. sidoo kale waxa muhiim ah in ma aragtay calooshay socodsiisa qolofta rumaanka waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee ka mid tahay. ma fahanteen qolofta rumaanka markii aad soo gadatid qolofta rumaanka ha tuurin. qolofta rumaanka shiido shax ka dhigo. waxa way caafimaad badan. aad ka raadisaan internetka mustaqbalka benefit pomegranate kartaa meeshaas baad ka helaysaa caafimaadka uu leeyahay geedka rumaanka la yiraahdo. marka la yaabsanahay Soomaaliya oo Ilaahay dhul barwaaqo ah roob leh oo ma aragtay geedkan rumaanka aan ka faa'iideysanaynin aan beeraynin xataa saqaafadiisa sida loo beero aan ka saynin. haddeer qofkii Soomaaliya aadayo kale geedkan laamankan uu goosanaya dhulku gelina biidnillaahi tacaala way u soo baxaysaa. waxaad isweydiinaysaa geedkan intee ku yaali karaa. geedkan wuxuu ku yaalaa xaafadda ay Soomaalida u badan tahay oo maqaayadaha Soomaalida ay aad iyo aad u badan yihiin. halkaas oo dhan waxa way wada Soomaali waaye. xaafadan oo dhan waxa way wada Soomaali waaye. marka rumaanka ha lagu dadaalo in la beerto. intaasaan ku soo gabagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. geedkan nama iloobay ubaxan wuu carfaa Soomaaliyana wuu ka baxaa oo waa ku arkay inuu ka baxo geedkaas. shinnidana way jeceshahay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.